dabcan markii aan tagayaan ka warramay sababtaan u aaday dalkaas oo ah arrimo la xiriira amniga Puntland iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha Puntland labadaas arrimood baa u weynaa runtii waxaan meesha u tagnay iyagina wada hadalkii aan galay iyo ama ha noqdo dhanka private sector-ka ama noqoto dhanka dawladda wuxuu nagu soo dhamaaday runtii guul si wanaagsan buu nagu soo dhamaaday waxaan sidoo kale dawladda isu tag Imaaraadka Carabta aan ka codsanay in mashaariic dheeri ah ay ka hirgeliyaan Puntland gaar ahaan dhanka waxbarashada caafimaadka biyaha iyo wixii la mid ah guul baan rajaynaynaa insha Allah iyo mashaariicaas inay soo taraan waqti aan dheerayn dabcan dhanka kalena haddaan meesha tagay dabcan wixii shidaha u jira oo dadka Soomaalidu qabaan inaan wixii igaga aadan ka mas'uul ahaan inaan wax ka iraahdana kulli waxaan manayaa way ugu habboonayd wixii aan ka irin karina waan ka iri wixii wanaag ah oo la soo dhaweyn karo Soomaali iyo Imaaraadkana wixii naga aadana ka wafdi ahaan waanu kan rir insha Allah waxaan rajaynayaa marka in xiriirkaasuna wanaagsanaado dadku isqabad kasta oo yimaada waxa loo baahan yahay in laga shaqeeyo xal fiican in loo helo sababta waxa weeye dal iyo dad aanu kala maarana maaha wadad aanu sinta saga xiranahay wadad wanaag badan naga dhaxeeyo wadad yaani uu naga dhaxeeyo taariikh wanaagsan naga dhaxayso marka waxaan rajaynayaa inuu iska wanaagsanaan doono insha Allah waqti aan dheerayn waxaan aad iyo aad uga tacsiideynayaa dadkii ku dhintay saraakiisha ku dhimatay gaalkacyo oo shiroodayaashu ay dileen oo ugu horeeyay xoreeye taliyay ciidankii isku dhafka ah ee ka shaqeynaya magaalada gaalkacyo runtii shaqo fiican ka hayay Allah u naxariisto meel fiican ha geeyo waxa weeye waxay u dhinteen shaqo qaran bay ku dhinteen u tacsiideynayaa ummadda reer Puntland iyo Soomaaliya oo dhanba iyo qoyskii ay si gaar uga baxeen aad baan u tacsiideynayaa saraakiishaas askarta dhimatay sidoo kale waxaan rabaa inaan runtii aan wax ka iraahdo arintii biyihii iyo fatahaadii wabiga ee magaalada Beledweyne oo runtii dhibaato weyn u geysay gobolkaasi dabcan baaq baan ka dirnay anoo ku hadlay magaca dowlad goboleedyada beesha caalamkana aan u dirnay dowladda Soomaaliyeed aan u dirnay in dadkaasi lala gaaro taageero iyo macaawino degdeg ah oo dhibta lala qaybsado reer Hiiraan iyo reer Hirshabeellaba ka Puntland insha Allah wixii naga aadan si muglayaan uga qayb qaadan doona hadii la yiraahdo marka iyagana waxaan rajaynayaa Ilaahay dhibta u fududeeyo Ilaahay inuu shidada dhibta ka kor qaado ayaan u rajaynayaa sidoo kale waxaan u hambalyeeyaa gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka Maxamed Mursal waxaan rajaynayaa inuu gudoomiyuhu noqdo gudoomiye hogaamiye fiican u noqdo baarlamaanka isu keena baarlamaanka mideeya baarlamaanka guud ahaan ka shaqeeya danta iyo maslaxadda Soomaaliyeed iyo shaqada muhiimka ah oo qabtay nin sidacadnimo ah iyo wadaninimo ah ugu adeega Soomaaliya meel kasta ay joogaanba ayaan rajaynayaa